بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبي هل كسر هذا مركله إيوه FBL Somali وحنوصل جو بعيارتك صدن إيوه لحد وحنا جب كده ريالك بريمير ليجا إيوه حل عيارتك FBL كورن والله كلهم إيرسين كتصوح موجنا يسا إن هدي إجران ترتن أو كجرتد ليج أو كجرتد إن كحساب تنتد حتى هذه جبار كو هران إن تدوات كحية أو كل يهين كو استعمال كرتد وإن كفايدة سكرتد وحان أقولنا هاي إن تدوات كلا صورة في جبار أقول بدنا الاستعمال هاين فريهت كأي وايل كاركا أو قار أي أهر صناعين ما دام عيارات كهري عيارات سودان شناد وها دبل جيم ويك أي معمولاش أنت بدنا استعمالين بنج بوستيجا أو جبار أقول بدنا تدوات كاس الاستعمالين كتدوات كان وحن فيرنا عيارنا دي تدوات كان قدام هذه يقول لي بعها بدنا عياريان كانوا مع فيران توريس أو عيار كوحدة مانشستر سيتي أيها كياني لبعضن لبعض وحون أها عياريان كأقول لي بعها بدنا تدوات كي لصورة في فيران توريس أيها سدح لي كده اللي كوحدة نيوكاسل أو عيار كله معطي أفري سدح وجول بدس كده اللي لا تدو جول فيران توريس سدح كم إذا يقول لي أو ميت كم إذا أوها جول كجوشة marka si guud ciyaaryahanada ugu dhibcaha badnaa waxa uu horeeyay goolahayaha kooxda Sheffield United Ramsdale waxa uu keenay 10 dhibcood Sheffield United ayaa shabaqeeda ilaashatay Ramsdale waxa uu sameeyay ilaa 6 dhibcood oo uu ka sameeyay dhinaca badbaadinta ama shabaq ilaashashada dhibcihii dheeraadka ahaana laba ay ku darsaday sidaas ay 10 ku keenay Mitchell oo ahaa mid kamid ah بونس كوجو لا يبقى بدنا أسبوع اللي صار فيه ما دام وصل أنت بدنا عيارها كلها من جرن يعني واحد اللي يقول كي يقول كم إذا قولش أي سدحي لو هذا يكذب بس يكون هذا كريستال بالاس أستون يا واحد وسداس كوكاني سدحي تون لبعض جاك روبنسون أو عيارهن دائر أو عيار كوحدة شيفيلد يونايتد هي عاون سميه واحد كاني سدحي كوي تون لبعض كانسيلو ayaa isna kamid ahaa ciyaartii afar iyo 3 Man City kaga baysay kooxda Newcastle oo uu dhaliyay gool kamid ah goolashiisa sidoo kale hal caawin uu sameeyay Alioski oo ciyaara kooxda Leeds ayaa isna kamid ah difaacada ugu dhibcaha badnaa toddobaadkii la soo dhaafay oo 10 dhibcood ayuu keenay Ferran Torres waa ninka ugu dhibca badan toddobaadkan 70 ayuu keenay waan ka soo hadlay Jack Harrison ayaa sameeyay caawin laba ah sidoo kale hal gool ayuu dhaliyay ciyaartii 4-0 Leeds kaga baysay kooxda Burnley sidaas ayuu ku keenay 16 dhibcood waana ciyaaryahanka labaad ee ugu dhibca badan toddobaadkan dhinaca khadka dhexe ciyaaryahanka saddexaad ee ugu dhibca badan toddobaadkan waa Højbjerg oo ciyaara kooxda Tottenham oo 2-0 kaga baysay kooxda Wolves waxa uu dhaliyay mid kamid ah goolashii iyo sidoo kale soo caawin sameeyay sidaasna ku keenay 14 dhibcood ciyaaryahan Nathan Tella oo ciyaara kooxda Southampton oo 3 kaga baysay Fulham ayaa keenay 12 dhibcood waxa uu dhaliyay mid kamid ah goolashii ay ku badiyeen iyo sidoo kale hal caawin ayuu sameeyay dhibcii dheeraadka ahana wuxuu helay 2 ayuu helay Asbariki Eze oo ahaa mid kamid ah ciyaaryahanadii ugu dhibcaha badnaa toddobaadkii double game-ga la soo dhaafay ayaa keenay 10 dhibcood Asbariki Eze wuxuu sameeyay caawin sidoo kale dhibcii dheeraadka ah ayuu helay 2 kamid ah Rodrigo oo ciyaara kooxda Leeds United oo 4-0 kaga baysay Burnley ayaa dhaliyay 2 gool sidoo kalena helay dhibcii dheeraadka ahaa sidaasna ku keenay 12 dhibcood dhibcahan marka la isku dardaro waa 138 dhibcood oo toddobaadkii la soo dhaafay wuxuu kamid ahaa toddobaadyadii ugu dhibcaha yaraa maadaama kulamo ay ka baaqdeen kooxo kamid ah oo kooxaha qaar aysan ciyaarin maadaama ay ciyaareen usbuucii ka horeeyay ee triple game week ama double game week la wada ciyaaray ee kooxo badan ay lahayn kulamo laba ah haddii aan marka fiirino toddobaadka horteena ah iyo kulamada la ciyaari doono oo kama dambaysta suuqa kala iibsiga uu yahay oo habeenka talaadada ah oo ay kooxaha kulanka ugu soo horeyn uu yahay Manchester United oo martigelinaysa kooxda Fulham Southampton oo martigelinaysa kooxda Leeds Brighton oo martigelinaysa Manchester City Chelsea oo martigelinaysa Leicester Everton iyo Wolves oo arki doona Newcastle iyo Sheffield United oo sarki doona Tottenham oo martigelinaysa kooxda Aston Villa Crystal Palace oo martigelinaysa Arsenal Burnley oo martigelinaysa Liverpool West Brom iyo
West Ham oo is arki doona oo ah isaga kulankaas oo ah kulanka ugu dambeeya oo kulamadan waxaa la ciyaari doonaa 2 habeen oo kaliya oo maalinta Talaadada ah iyo Arbacada ayaa la kala ciyaari doonaa maadaama uu dhamaan doonaba horyaalka oo dhan oo toddobaadka soo socda uu yahay toddobaadka ugu dambeeya xilli ciyaareedkan oo ah maalinta Axadda ah 23 May marka haddii aad tahay maamule soo ciyaaray sanadkan oo dhan waxaad ka sheekeyn kartaa si guud xilli ciyaareedkaaga marka barnaamijyo waxaa jiri doona oo markuu xilli ciyaareedka dhamaado aan soo qaadan doono oo aan uga hadli doono xilli ciyaareedka dhamaaday iyo taasna waxaan rajeynayaa inaad ku hayn doontaan oo aad channelka la socon doontaan sidoo kale waxaan xasuusinayaa haddii aad weli channelka subscribe saarin inaad subscribe saartid sidoo kalena aad like saartid oo aad share garaysid haddii uu sidoo kalena aad furatid notification iconka ama bell iconka aad furatid oo aad la socotid muuqaalada channelka uu soo saari doona FPL Suman sidoo kale dhinaca Facebooka Instagramka iyo Twitterka ayaan wax ku soo update gareynaa oo waxyaabaha la xiriira Fantasy Premier League oo dhan ayaan ku soo qornaa halkaasna nooga soo biir ayaan leeyahay